Soomaaliya oo shaacisay tirada dadka laga helay caabuqa COVID-19 qodobkaasi waxay noo qaada dhigaysa wariyahayaga Maryam Marro. wasiirka wasaaradda maaliyaddii xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in wadamada ku bahoobay Paris Club ee Soomaaliya ka cafiyeen 1.4 milyan oo dollar ay ku lahaayeen. waxa uu sheegay wasiirka in qaar ka mid ah wadamadaasi oo shir muuqaal toos ah dhanka internetka la qaatay dalalka ku bahoobay Paris Club kaas oo looga wada hadlayay muhiimadda ay xilligan Soomaaliya ku leedahay in dalalka ku midaysan Paris Club ay Soomaaliya ka cafiyaan deymihii ay ku lahaayeen. waxa uu intaa ku daray wasiirka in shirka oo saacado badan qaatay kadib xubnihii ka qaybgalaya matalaya wadamadaasi ay go'aamiyeen in Soomaaliya laga cafiyo deyntaasi. sidoo kale wasiirka waxa uu sheegay in wadamadii shirka ka qaybgalaya ay dhawaan bilaabi doonaan qorshihii wadamada Carabta ee Soomaaliya uga cafin lahayd deynta ay ku leeyihiin. ugu dambeyntii wasiirka waxa uu sheegay in cudurka coronavirus laga cabsi qabo inuu dhibaato badan u keeno Soomaaliya. waxa uu sheegay in bangiga adduunka ay ka dalbadeen lacago loogu talagalay in looga hortago faafidda caabuqan dilaaga ee COVID-19. Maryam Maxamed Cali, Wadani FM.